Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ardayay soo dhowaada maalin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin aad fiican tihiin. Casharkeenna maanta waxaad ku baranaysaan xilliyada sanadka ama sanadka 12 bilood. Waxa uu leeyahay waqtiyo kala duwan oo ay cimiladu isbedbedesho. Waxaan isbarbar dhigi doonaa xilli sanadeedka dalkeena hooyo ee Soomaaliya iyo weliba xilli sanadeedka dalkan Sweden oo aanu ku noolnahay. Anigoo macalin Mustafa ayaa casharka idinla socodsiinaya. Waan rajaynayaa inaad wax badan aad ka baran doontaan. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkenan macalin Mustafa ha iloowin in aad nagu soo biirto ama subscribe dhahdo. Wixii commenti ah ama fikrad ahna hoos noogu reeb. Like-ta iyo share-tana ha ilaawin. Mahadsanidin. Casharkeena ayaan guda galaynaa hadduu Ilaahay idmo. Xilliyada Soomaaliya. Xilliyada sanadku waa 4, waxayna kala yihiin gu, xaga, dayr iyo diraac ama diraacda waxaa kaloo loo yaqaan jiilaal. Guga iyo dayrtu waa xilli roobaad oo dalkeena hooyo waxaa ka da'a roob, inkastoo mararka qaar uusan roobkaas di'in. Markii uu roob da'o, kadib dhirtu waxay noqdaan kuwo cagaar ah oo indhaha u roon. Markii uusan roob di'inna, dhirtu waxay noqdaan qallayl aan indhaha u roonayn. Xagaaga waa waqti dabaylo leh. Soomaaliya, guga iyo xagaaga. Gugu waxa uu bilowdaa bisha 4aad ilaa bisha 6aad. Macnaheedu waxa weeye bisha 4aad, 5aad iyo 6aad waa waqtiga guga dalkeena hooyo ee Soomaaliya. Gugu waa xilli roobaad. Macnaha waxa weeye guga waxaa da'a roobab badan ayaa ka da'a dalkeena hooyo ee Soomaaliya. Dhirtu way baxdaa, xoolaha ayaa daaqa, dadkuna waa harsadaan. Beeraha iyo dalaguba waa koraan. Dalkeena waxaa ka baxa dhir ama dalagyo aad u fara badan sida mooska, liin macaanta, liin dhanaanta, cambaha, qaraha ama xabxabka hadda saad u taqaano iyo weliba khudradda cagaaran ayaa dalkeena si wanaagsan uga baxa. Waxayna Soomaaliya u dhoofiyaan xoolaha nool iyo weliba dalagyada ama beeraha waxyaalaha ka soo go'a dalkeena waxa uu dhoofiyaa dalalka deriska ah. Dalkeena cimilo wanaagsan ayuu haystaa oo qorraxdu dabcan 12 bilood baa dalkeena qorrax ayaa ka jirta. Taas ayaa ka saacidaysa in beeraleyda ay dabcan u soo baxaan dalagyo kala duwan waqti kasta. Xagaaga ayaan dabcan aan u gudbaynaa. Xagaaga waa bisha 7aad ilaa bisha 9aad. 7aad iyo 8aad iyo 9aad dalkeena waa xilli kulul oo dabaylo xoog leh jiraan gaar ahaan xeebaha. Meelaha xeebaha magaalooyinka ku yaala xeebaha ama badaha waa aad ayay u kulul yihiin waqtiga xagaaga. Dabaylo aad u fara badan ayaana ka dhaca. Dalkeena waa Soomaaliya. Dabaylaha faraha badan waqtiga xagaaga dabcan waxaa kugu adkaanaysa in aad gobolada qaybtood aad socoto ama aad lugayso. Gobolada qaybtood waa ku roon yihiin oo dabaylo badan kama dhacaan. Badanaaba deegaamada iska leh xeebaha ama badaha ayaa waxaa dabcan ka dhaca dabaylo aad u fara badan. Dhulku weli waa cagaar. Waqtiga xagaaga dhirtu weli waa cagaaran tahay, balse dabaylahaas faraha badan ayaa dabcan dhirta caleemahooda dhulka ku ridaya. Weli Soomaaliya ayaa ku jirnaa dayrta iyo diraacda ama jiilaal hadda saad u taqaano. Diraac iyo jiilaal waa isku mid. Waqtiyada dayrta iyo diraaca ama jiilaalka maxaa dalkeena dabcan ka dhaca. Waqtiyada dayrta waa bisha 10aad ilaa bisha 12aad. Waa 10aad, 11aad iyo 12aad
waa xilli roobab kale oo yaryar da'aan. Dayrta dalkeena iyo Soomaaliya gobolada qaarkood roobab badan kama da'o. Roob yar ayaa ka da'a. Guga ayaa waxa weeye waqtiga ugu roobka badan dalkeena iyo Soomaaliya. Beeraha mar labaad ayaa la beeraa. Cimiladu waa degan tahay oo aad uma kulula. Waqtiga jiilaalka dalkeena ama diraacda waa bisha 1 ilaa bisha 3. Xoogaa qabow yar ayaa dalka ka jira, balse markii dalka loo eego waqtiyadaas waa waqtiyada ugu qabowga badan. Balse baraf kama da'o dalkeena, alxamdulillaah. Mana lahan minus grader ama minus ma lahan. Qabowgiisu mar walbo waa plus ama ma noqdo minus. Waa xilli aad u qalalan oo kulul. Xilliga jiilaalka waa xilli aad u adag. Roob ma jiro, wax roob ah kama da'o guud ahaan dalka Soomaaliya. Dhulku waa engegaa waxa weeye ardayda dhulku waa qalalaa. Xooluhuna way dhibtoodaan. Xoolaha waxaa ku dhacaa biyihii ayaa ku yaraada ama biyo way waayaan maadaama uusan roob di'in. Dhirtuna waa qalalaan. Xoolaha waa ogtihiin waxay cunaan dhirta, biyahana way cabaan. Marka dalkeen martuu abaar ka dhaco ama waqtiyadaas jiilaalka diraacda la marayo, xoolaha Soomaaliya ku nool waxaa ku adkaada in ay helaan wax ay cunaan iyo wax ay cabaanba. Xoolo badan ayaa meeshaas ku baabaa ama ku dhinta. Dadka qaar waxay u guuraan meelo biyo iyo daaq leh. Meelaha biyaha leh ama xooluhu ay ka helayaan wax ay cunaan ayay dabcan dadka reer miyiga ah ay u guuraan. Waddankan aan ku noolnahay Sweden waxaan isna ka sheekayn doonaa waqtiyada guga iyo weliba waqtiga xagaaga. Sweden waqtiga guga barafku wuu dhalaalaa, dhirtuna way soo baxdaa. Barafku wuu dhalaalaa waxaa laga wadaa barafka macnaha wuxuu noqonayaa wuu dhalaalayaa, wuu baaba'ayaa, dhirtuna way soo baxdaa. Maalmuhu way dheeraadaan, hawaduna way diirimaataa. Hawadu waxay soo noqotaa maadaama waqtiga qaboobaha laga baxayo, hawo aad u macaan bay noqotaa. Maalmihiina waxay noqonayaan kuwo dheer maadaama waqtiga barafka ama winterka lagu jiro ay maalintu yar tahay. Xagaaga ama samarka waxa uu bilowdaa bisha 6 ilaa bisha 8. Waqtiyadaas iskuulada waa la xiraa. Waa xilli kulul oo qorraxdu maalintii oo dhan way muuqataa, gaar ahaan waqooyiga Sweden. Waqooyiga Sweden waqtigaas xagaaga ah maalintii ayaa aad u dheer. Gobolada kale sida koonfurtana maalintu sidoo kale way dheer tahay, laakiin markasta maalintu waxay aad ugu dheer tahay waqooyiga dalka Sweden. Dadku fasax bay galaan, waxayna aadaan safarro dalal kale ay u aadayaan ama waddanka gudihiisaba way ku dhex safraan iyagoo dadku soo booqanaya meelaha xeebaha ama beeraha iyo weliba meelaha dalxiistayaasha loogu talagalay. Heerkulka dalkan Sweden inta badan waa 15 ilaa 25 grader weeye. Waqtiyada hostiga iyo winterka dayrta ama jiilaalka dalkan Sweden. Dayrtu waxay bilaabataa bisha 9 ilaa bisha 11. Caleemaha geedaha waxay noqdaan jaalle ama leemi, midabo kala duwan way noqdaan. Dhulka ayayna caleemuhu ku dhacaan. Cimiladu way qabowdahay, maalmuhuna way gaaban yihiin. Dad badan waxa ay gurtaan miraha ama khudradda ka baxa dhir beereedka sida tufaax oo kale iyo waqtiyadaas ayuu soo baxayaa. Jiilaalka ama waqtiga diraacda dalkan Sweden waa December ilaa Febraayo, bisha 12 ilaa bisha 2. Waqooyiga Sweden waqti hore waa ka bilowdaa jiilaalka, waqti dambana wuu ka dhammaadaa. Laakiin koonfurta iyo gobolada kale waqtiga jiilaalka badanaa wuxuu bilowdaa bisha 11 dhammaadkeeda meelahaas, 2 dhammaadkeedana waa ka dhammaadaa. Laakiin waqooyiga dalka Sweden waxaa laga yaabaa 9aad inuu bilowdo isla markaana uu ka dhammaado bisha 4aad meelahaas uu ka dhammaado barafku. Baraf iyo qabow aad u daran ayaa jira waqtiyadaas jiilaalka ama winterka ah. Dadku badanaaba waxay gishtaan dharka dhaxanta celiya sida jaakada, koofiyadda iyo kabaha barafkaba loogu talagalay. Waa xilli madow gaar ahaan waqooyiga dalka Sweden. Waqtiyada
Jiilaalka Sweden waa waqti mugdigu aad u badan yahay. Habeenkii ayaa badan, maalintii way yar tahay. Maalintii xataa waxaa jira baraf ayaa cirka dabcan ka buuxa oo waxaa adkaata in qorraxdu ay soo baxdo. Habeen iyo maalin waxaad dareemaysaa mugdi aad u fara badan. Su'aalaha ardayga casharka intaas ayaan kusoo koobaynaa. Waan isbarbar dhigaynay dalkeena hooyo Soomaaliya iyo dalkan Sweden oo aanu ku noolnahay waqtiyadooda. Su-aasha koowaad ee ardayay nidinka rabo inaad ka jawaabtaan waa maxay farqiga u dhexeeya xilli sanadeedka Soomaaliya iyo Sweden? Macnaha dalkeena hooyo Soomaaliya iyo Sweden waqtiyada xilli sanadeedka maxay isku mid ka yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin? Su-aasha labaad waxa weeye waqtiyadee ugu jeceshahay, maxaad samaysaa adiga waqtigee ugu jeceshahay? Tusaale ahaan xagaaga oo kale haddaad ugu jeceshahay maxaad ku jeceshahay? Dadka ardada qaybtood waxay jecel yihiin waqtiyada xagaaga maxaa yeelay iskuulka ayaa laga xiraa oo waxay u safraan dalal kala duwan sida dalkeena hooyo ee Soomaaliya ayay tagaan oo dalxiis tagaan. Marka adiga waqtigee ayaad ugu jeceshahay, maxaadse samaysaa waqtigaas? Su-aasha saddexaad, adiga waqti sanadkee dhalatay? Waqtiga aad dhalatay ma xagaaba, ma dayrba, gu mise diraac ama jiilaal? Macnaha bishaad dhalatay, tusaale ahaan bisha 6aad oo kale haddaad dhalatay waxaad dhalatay waqti xagaa ah. Tusaale ahaan bisha 11aad ama 12aad haddaad dhalatay waxaad dhalatay waqti diraac ama jiilaal ah. Aniga macallin Mustafa ah waxaan dhashay bisha 3aad oo ah waqti gu ah oo dabcan barafkii uu dhalaalay isla markaana dhirtu ay soo noolaanayso oo ay soo baxayso. Marka adiga waqtigee ayaad dhalatay? Haddii aad YouTube-ka su'aalahan aad ka daawanayso ama muuqaalkan isku day qaybta comments-ka in aad noogu reebto. Ardada TikTok-ta kala socota sidoo kale qaybta comments-ka ayaa dabcan su'aalahan uga soo jawaabaysaa. Haddii aad iskuulka gudihiisa aad ku dhex daawanaysana macallinkaaga ama barahaaga ayaa ku weydiinaya isla markaana aad uga jawaabi kartaa ama warqad iyo qalin ayaad ku qori kartaa. Haddii aad xaafadda joogto hooyada ama walaalaha ka waaweyn ama aabe ayaa dabcan aad weydiin kartaa isla markaana su'aalahaas aad uga jawaabi kartaa. Aad baa u mahadsantihiin. La socda casharada xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ardayga su-aashan u dambaysa sawiradan keeba ah Sweden ama Soomaaliya? Labada sawir ay ujeedaan sawirkee ayaa ah Soomaaliya aad u malaynaysaa? Sawirkee ayaad u malaynaysaa inuu yahay Sweden? Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.